السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيقو فردوس إسماعيلة. أنيقو صاروخ شيخة. أنيقو عاشر لدن تيم قول يقبنيمو. هلا بصعدو برنامج قرح بدن عاو. ما شاء الله. ما أنت برنامج عرورته وبريدن أنك مشغولنا رمضان إيدي الدنيا نقصوق الشيء. عاو إلهي سكايا كاني. ما إيدي فويد. إيدي فويد. كصع. إن بدن بالله أركي لكن وقت باللواي هذا الدب لو صنولي. عرورته ومهم. ما شاء الله. markasta in laga hadlo waa caruurta waa quruxda barbaarinta caruurta waa ubixi soo kacayay waa bedelkina bedelayay waa ayaha bari dambe iyo bari saakol iyo saa dambe ayaha dambe ee soo socdo waa caruurta aad iyo aad marka xaq bay u leeyihiin in laga hadlo wax badan marka programkani waa programkii noo socon jiray janaalkayga hore uga socon jiray maalmahan meedaan arkin dhagihiinu ma maqlin marka insha Allah aad iyo aad baan ka raali gelinaynaa maanta labadayda garab bay la jooga insha Allah ila daadihinaya haddana waxaan u dhiibayaa sayruuq ما شاء الله sayruuq labadaba mid sayruuq faadumo warsan intaba magacyo badnida horta anin bal xabadii ku soo wareeji aan laba yeeshe ka jeclaatid qaado warsan baan qaadanaya bas ما شاء الله lagu sii firdawsa warsan hadda kadib yaa hadda ka bacdi waa firdawsa warsan iyo caasha sayruuq sayruuq kula qaybsanaysaa oo kula qaybsanabo magaca waa la qabsada ma sha Allah tabaaraka Allah sida la igu soo dhaweeyay barnaamijka quruxda badan ee caruurta ee barbaarinta in waa kaftan oo maadaama dadkii aan in badan xoogaa ka yara maqnayn annagoo isku duubana weli hawada aan soo galin anigana marti ii joogtay caasha iska mashquulshay firdawsa mashquul noqotay nin walba dantiisii cuslaysay dib waxaan usoo noolaynay inaan isu imaano barnaamijkeeni wadno horey u soconno noqono tiim qurux badan ee kasoo baxay magaalada aan degannahay wadanka aan degannahay gobolka aan degannahay magaalada waa Toronto gobolka waa Ontario ma sha Allah tabaaraka Allah waxaan leeyahay tiim qurux badan oo kasoo baxay inaan noqono aad baan u jeclahay horeyna loo isku duuban kala dambeyn leh ismaqal leh isdhexgelin ay ka dhaxayso qofka kale aad u xaq dhowrayo taas waxaan leeyahay dadku markay isku xiran yihiin way isqabtaan way isxaq dhowraan aad baan isu xaq dhowraynaa aad baan isu ilaalinaynaa aad baan waxaan u jecelnahay hankanaga meesha uu gaaro saro inaan gaarsiino insha Allah inagoonaan runtii aanan waxba isu dhimaynin farxadeena ka shaqaynayno dadka nagu xiran ee jannaaladeena aad baan u salaameynaa waxaan leenahay caafimaad ku waara ilaahay cimri dheer cibaado laha idin siiyo allah raxmaanka meel alla meesha joogtaanba nabad ha idinku siiyo ilaahay caafimaad ha idinku siiyo caruurta allah idin barakeeyo dhammaantiin caruurta allah noo barakeeyo baariyaalna allah nooga dhigo caruurtu waa wax lagu daalo gabadha iyadoo yar oo qurux badan oo gurigooda joogto bay ka soo baxaysaa waxay bilaabaysaa hadal shukaansi hasaabo hadba nin walba sida u garanayo waxay damcaysaa guri qurux badan oo wanaagsan annaga shukaansi waa dhana hasaabo waa dhana xudxudasho waa la dhahaa waxyaalo badan idinka idin taalaay waxyaalo badan baa runtii la dhahaa gabadhaas waxay usoo baxday inay guri qurux badan yeelato qof ay jeceshahay ee la noolaato waqti la qaadato ilaahay wuxuu kala siinayaa awlaad wiilkina sidoo kale waxaa lagu soo barbaarinayaa guri waxaa soo barbaarinaya hooyo iyo aabbo qurux badan baa soo barbaarsanayo kadib banaanka markuu u soo baxo buu isna wuxuu raadsanayaa gabar dhiggiisa ah inuu helo gabadhaas uu meel la dego oo farxad ku helo oo uu ku raysto oo uu ku nagaado oo uu maxaan ku dhahdaa daal iyo diihaal intaba uga harto kadib maxaa imaan doono caruurtii mirihii la sugayey ubixii la beerayey mirihiisii waraabintii la iswaraabinayey wixii ka soo baxay jawaabtii intibaa bannaanka ilaahay keenayaa caruur baa imaanaysa qurux badan caruurta maxay u baahan tahay marka daryeel bay u baahan tahay diin bay u baahan tahay dayactir bay u baahan tahay in la waaniyo wax loo sheegay u baahan yihiin
waxay u baahan yihiin in maxaan ku dhahdaye dhagahoodu wax san lagu shubo waxa xunna laga ilaaliyo cunugaaga waxaa adiga sameynaya siduu kugu dayanaya gabadha hooyadeed bay ku dayanaysaa wiilkana aabihii aabuhu hadduu tukado gabadha wiilkuu tukanaya hooyadu gabadhu maxaan ku dhaha hooyadu hadday tukato gabadhu way tukanaysaa hadday gabadhu islaamka ilaahay nabadgeliso hooyadeed ay tahay qof dariska nabadgeliyo gabadhina hadhow dariska way nabadgelinaysaa wiilkaas hadduu yahay wiil aabihiis markuu gacanta qabto oo masaajidka uu la tago nin salaam badan assalaamu calaykum waraxmatullah walalsee tahay ma fiican tahay qalbi furan dadka masaajidka uu ugu tegay ku salaamaya hadduu yahay wiilkiisa la socda uu gacanta hayo uu arkayaa wuu fiirsanayaa berri cunugii muxuu samaynayaa raadkii aabihii buu raacayaa oo ahaa in uu markuu wadada maraya dadka salaama assalaamu calaykum uu dhaho waayo barbaarintay ka mid tahay aabihiisuu ka bartay cunuga haye cunuga wuxuu noqonayaa cunug deeqsi ah markuu aabihii la socdo hadduu arko aabihiisoo jeebkiisa intuu gacanta geliyay sadaqa baxsaday oo sanduuqii yaraa ku ritay hooyadiisoo markay soo adeegaysa hooyadeed raacday suuqa ay ku aragto qof masaakiin ah ama qof wax u baahan biilkeedii ay wadatay hadday wax ka siiso hooyadii ay ka siiso gabadhii way ku dayanaysaa adigay ku fiirsanayaan marka waxay isleedahay berri hooyadaa shalay markay suuqa kasoo adeegayseen qof bay aragtay dhibaataysan lacagtii ay wadatay wax ka siisay hooyada iyada maxay isleedahay beri adiguna wax ka sii maanta adiga waxaa u tahay tusaalo ilmaha marka noocaas ah aad soo barbaarisay ee tusaalaha aad u ahayd ee quruxda badnaa ee wanaagsanaa waxaa lagaaga baahan yahay qalbiyadooda in ay noqdaan qalbi nadiif ah qalbi wanaagsan qalbi ay dadka ku kasban karaan inaad bartid intay yar yihiin dad baa waxay ku dhahayaan ilmahaygu waa badan yihiin ilaahay kuu barakeeyo allah kuu dhowro allah kuu xafido laakiin tarbiyadda ilmahaaga baro cay ma aha ceeb ma aha aflagaada ma aha waa waano iyo talo walaal oo kuu timid qaado maxaa soo haray in aad ilmahaaga markuu imaado guriga aad bartid inuu ku salaamo inuu ku dhaho hooyo asalaamu calaykum hooyo see tahay hooyo ma fiican tahay hooyo xaaladaada ka waran odagaaga guriga markuu soo galo haddaad salaam fiican ku salaamtid ilmahaagu way kugu dayanayaan ayaguna way salaamayaan aabo see tahay ma fiicantay leeyihiin waa ka hortegayaan laakiin markaad kabtii iyo karintii iyo qaylidii iyo buuqii iyo wareerkii iyo gurigiioo salal iyo salow ka kacsan yahay albaabka laga soo galo ilmaha ma nagaanayaan iyaguna neerfas bay noqon waxa loo yidhaahda ilmaha maad aragtay horta cadharna soomaalida ilmeeda kulliyin waxa loo yidhaha mataqaanaa waxoogaa waa maya ilmaha markii loo sheekeeyo wuu degaa cunuga aad iyo aad cunuga markuu kula hadlo aad dhahday hayla hadlen ma degaayo cunugaas hadalkeed ku celisay hadalkii baad ku celisay cunuga la fariiso ka gur hadalka waa run qof walba stoorigiisa ka dhegaysan cunuga ka dhegaysa waxa dhibka uu qabo ha kuu sheegto ka baabi'i ka tir ka waani kala hadal maskaxdaada sii cunuga la fariiso ka gur hadalka waa run qof walba stoorigiisa ka dhegaysan cunuga ka dhegaysa waxa dhibka uu qabo ha kuu sheegto ka baabi'i ka tir ka waani kala hadal maskaxdaada sii maskaxdiisa ha ku siiye insha allahu biidnillahi alkariim casharada baan ku wareejinayaa borogaraamka oo kasii wadi doonta halkaas annaga oo runtii aad iyo aad idiin salaamayno isku duubanna waanu idinla joognaa borogaraamkan iyo borogaraamo kale dhagahana noo fura maasha allah waa xaggiina maasha wallaahi warsan maasha allah waa runtaasaad sheegtay waxaa waalidka sidiis kaleba asaa ilmihiisa wax ka dhigan karo waalidka waxaa loo baahayaa markaas wanaaga ilmaha hadduu isaga baro sax mirihiisuu guranaya nacam laakiin waalidka hadduu isaga qaylo guriga uu ku hayo hooyadii qaylinaysa aabihii qaylinaayo oo meesha ixtiraam loo yaalin ilmihii beri maxay noqon karaan hadda waa reerba owyaa ku leh
reer ba-ow yaa kuleh qol baan ka dhagaysan jiray gabadhaas gabadh aad u fiican bay ahayde manuuridiin baa loolan jiray maasha allah reer ba-ayow yaa kule bay dhihi jirtay markay gabdhaha waaninayso reer ba-ow yaa kuleh ku soco cara run markaan waalidka hadduu afka dhilaatay qaylo uu ku wado ilmihii waxay noqonayaan confuse borbaleenkia badanaya ilmihii ayaga naftooda ismaqlayni adigay ku maqlayni sax aabiyay maqlayni hooyaday maqlayni dhaga adeygay la imaanayaan maxaana yeele idinka ugu sabab ah sax wanaag markaa haddaa idinka wax isku sheegtiin qayladiina labadii isla hadlaysin ilmihii ay maqleen markaa wax isku qabtiin tartiib wax isku sheegtiin beri ilmihii waxay fiirinayaan waalidkii hooyadii aabihiisa isku jecel yihiin ayagana beri maxay noqonayaan waalidka wanaaga aad ka baratay aadna beri aad ku dhaqmaysaa aad la soo kacaysaa kalgacaylkii waalidkaada ay ku dhaqmayaan aadna beri aad beri samaynaysaa marka waalidka waxaa loo baahanyaa markasta ilmaha tusaale toosan tusaale tustiin ilmaha waxaa waaye arday waay nacam adigu macalinkeed jaamacaddu ka qalin jabinayaa jaamacadda koowaad uu ka soo baxayo watii guriga ku taagay taas waa marka arday markuu yahay ilmaha abaabinta adigaa soo dhisi kartid adaa iskale adaa dhisi kartid adaa wanaaga bari kartid qiimaha waalidka tusi kartid wanaaga magaciisa oo walaalihiisa si isku jeclaadaan adaa bari kartid kalgacaylka faamilkiisa kala sii gaaraya yaa gaarsiin karo waa adiga gaarsiin karo because maxay arkayaan hooyada inay hooyadeeda ay wanaajinayso aabihiis inuu wanaajinayo abtigaa imaaday adeerkaa imaaday walaalaha waa abtiga in adeerka waaye walaalka markaa la dhaho qofku muxuu dareemayaa naxariistii kusoo koray uu ku dhaqaaqa beri asagana beri ilmihiisi saasuu ku sameynaa laakiin buuq ma fiicno ilmahaada markaas u horseed meesha wanaagsan ilmahaada u horseed qaybta naxariista inaad tustid adiga haddaa ilmahaada naxariista aad qaylo leelaatay afka la soo taagan tahay beri cunigaas muxuu noqonaa caasuu noqonaa hadduu magaciisa inuu hadalkaada dhegeysanaa laga qaylinaysa intuu dhaho ilbaha jug kuu siiyo oo adiga hadalka aad leedahay dhib wax kasoo qaadi lahayn wuu kaa carara qof la barta markaan waxaan leeyahay waalidiinta nidaamka qofka gurigiisa ay kasoo baxaysaa taada kale ilmahaagiisa kugu baran qayli hadday kugu bartaan waa u dhamaatay waxay kuleeyihiin waa hadalkeeda iyo qaylideeda wax ma arkaya intee fasxa hooyo way qaylaysaa saasay u qaylaysaa maalinkaana u qaylinaya laakiin cuniga markay asaga inaad xanaaqda aad aragtid maya isdabaqo adi naftaa waa xanaaqa bini aadana tahay waxa adiga aad jecleyna inay ilmaha ay ku dhaqmaana laga yaabaa isdaba qabo inta hore u qosol laakiin marka dambe gacanta qabee wax u sheeg soo fariiso hooyo soo fariis intaa runta tus meesha soo fariisid wejiga u saarsid aad deganaan wax ugu sheegi kartaa cunuga ka hadalka kaa dhegeysana markaas nacam hooyo saan kuuma fiicno hooyo kan saas kuuma fiicno hooyo saan ha yeelin bari waxaa arkaysa khaladkiisa okay hooyo asoo leh oo madaxa kuu hoorinayo aad arkaysaa laakiin cunug lagu qaylo waxay taraysa malaha cunug la garaaca wax ma taraya wadankan la garaaci karaba wadanka wax garaacaya malaha wax dilaya malaha sideeda kaleba meel kasta joogaan kaliya waxay tahay waxa kaliya ay tahay waxay tahay inaa cunuga wax u sheegtay wax sheegitaanka muhiima adigoo waano iyo iskugu daraysid canaan hadda ugu daraysid waanan ugu daraysid aad waxna fahansiin kartaa cunugaada deganaan wax ku fahansiin kartaa ha samayn beri isaguna ilmihiisa ula tago dhaqanka maanta gurigan uu ka baranayo waa ku beri ku dhaqmi lahaa beri gabadhii uu jeclaa iyo reerku caruurtii sodohdii quruxda badnayd seediyaashii iyo dumaashiyaashii dhaqankii uu la tegi lahaa hadda wiilkaaga bar iyo gabadhaada bar guri qurux badan ha kasoo toosto maxaa yeelay ilmaha markay koraan ee waaweynaadaan reer bay yeelanayaan gurigaani gabadha waa la guursana guri kale tagay meesha ma joogi doonta faamil kale dhexgeli doontaa wiilkuu tagayo faamil kale dhex noolaan doonaa laakiin haddaa adiga marka guriga aaskiisaba adi soo dhisin reerkaas suu ku dhisnaana marka ilmaha maya waa ilmo yaryar dhalinyaro waa dadkan waa la isku keenay inay isla noolaadaanay rabaan
wayga iskula noolaan lahaayeen ma haystaan because idinkaa baqayla soo barteen iyo buuq iyo dagaal marka waxaan leenahay waalidka wanaaga asaa dad baro macalin asaa u arday waa ilmaha qaybta wanaaga saad ku bari lahaydeen falankeeda gala intii hore ugu jirto wanaaga ilmaha soo bartay waa ka muuqataa dadka qaar maasha allah qaarna waxaa magaciisa hala sii dibiday hadaa ka dhigtay ilmihiisa say u daaqaanay ay garanaayeen dibi foofa weel uma xiro iska soco daysana ka dhigina ilmihiina u daba qabta bara diinta ugu muhiimsan waa diinta iyo akhlaaqdiisa islaamka in qofka la baro guri qurux badan diin baa dadka xabista sagoog qofka markaa diin bartid ilmahaagu wuxuu leeyahay dabar qabta xarig qabtuu leeyahay uu kuu soo jilicsan yahay wax kasta uu ka qabsan yahay xarig dil iyo canaan kuma qasbi kartid xarig ilaahay mooyaane xarigga ilaahayna waa diinta ood bartid ilmahaaga markuu qaangaadh ama 20 jir yahay ama uu qof diin yaqaana yahay 20 sano markuu jiro qof diin la yahay isagaa kuu soo dabacsanaani isagaa ku hoos imaani waalidnimadii buu garani way duxdaa qofkan bari ka maalin hadduu xumaado xitaa oo qof qur'aan soo bartay uu yahay oo qof diintiisii ku iimaankiisii dhisan yahay si kastoo cunugaas uu u xumaado diintaa kusoo duxaysa beri wuu soo noqoni taas waa xaqiiqa diinta ilmaha lagu dabro waxaa waaye bini aadamka sidada kale waxa adiga kula dhaqantay qabsanaya diinta xaggeeda hadda adiga ilmaha inta yaryarin aas ku soo abaabin hadduu weynaadana ma ku kari kartid sax laakiin waxaa loo baahan yahay intay yaryihiin ilmaha dhagahooda in laga buuxiyo maskaxdooda laga geliyo muraayad waa cajalad yariisa khafiif wax duubaysa si fiican wax duubaysa intay yarta markay soo duubaan hadhow usoo duxaysaa waxay noqonaysaa qof diintiis ku adag nolosha ku adag everything magaciisa adeeg ka qaaday uu noqonaya laakiin cunug haddii aad sida wadan gaalaan joogna anaga wadan gaala waxaa hadday u bartaan oo ilmihii iskuulka loo diraya iskuulka hadday aadaan ay kasoo noqdaan waxay kusoo akhriyaan ma ogtahay waa maya waxay ku shubeen ka shub adna ka shub qur-aanka ku shub oo diinta ku shub oo akhlaaqda ku shub oo macnaha dhinacaadii wanaagsan waxaa hadda ka hor yiri raxmatullaahi waasican sheekhayni dhintay sheekh cumar faaruq berigu Sweden yimi wuxuu yiri reer Sweden ilaahay u naxariista rabbina jannadiisa ka waraabiya wuxuu yiri waxay ku soo shubaan buu yiri oo maalintii ku soo shubaan idinkuna habeenkii ka shuba taas beenahan marka ilmaha waxa banaanka looga shubo guriga halooga shubo insha Allah waxaanu leenahay clipku nagu dheeraaday waxaanu ku soo xiraynaa intaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tiim guul iyo goolnimo insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaah